jacaylka saddex ayaa loo qaybiyaa mid maanka kaa gala maskaxda iyo mid maalka gala iyo mid maamulka gala kan maamulka iyo maalka kaa gala wuu guuldareystaa dhibaato xun buuna qofka ku reebaa iyo maskaxiyan inuu u xanuunsado laakiin kan maskaxda kaa gala ama maanka kaa gala waa midka xitaa haddaa ku guuldareysatid aad go'aan qaadan kartid oo wadooyin badanna aad heli kartid haddaba kan maalka kaa gala waa kan aad qof ku jeclaatid magaciisa ama hantidiisa ama wuxuu markaasi aad isleedahay waa ka faa'iidi doontaa isla waxaasi waxay noqonayaan wax adiga saameyn kugu yeeshaa xitaa haddaa heshid muddo kadib waxaad arki doontaa wixii inaad u arki doontid inay wax aan qiimo lahayn badanaa markaad u fiirsatid dadka magaca isku soo raadsada ama maalka isku soo raadsada muddo kooban kaliya ayay joogaan kadib waxaad arkaysaa labada qof oo kala booda sababtana waxay tahay xiise ayay iskugu yimaadeen ama waxa laga yaabaa kii maalka raadinayay ama magaca raadinayay inuu dhibaato aad u weyn kala kulmo meeshaasi waayo waxa la raadinaya waa shakhsiyad ee lama raadinayo magaca dhibaatadaasina waxay noqonaysaa mid uu ku lumiyo aaminaadiisii rabitaankiisii iyo wixii markaasi maskaxdiisii ay doonaysay waxaana dhacaysa inuu ka soo kaba waayo kan maamulka kaa gala waa kan qof markaasi ku maamulaya aad jeclaatid tusaale ahaan macallin ama qof markaasi boos ku ah shaqaale aad u tahay ama qof markaasi aad isleedahay wuu kaa awood sarreeyaa qofkaasi kaa awood sarreeya maalinta jecel u qaadid maalintii aad guri u gashid waxaa dhacaysa qofkaasi si xun inuu kuula dhaqmo waayo awooddiisiibuu kuu isticmaalayaa waxaa dhacaysa marka dambe inaad noqoto qof maskixiyan xataa u xanuunsan qaabka loola dhaqmaya darteed jacaylka ugu wanaagsan waa jacaylka maanka kaa gala maskaxda kaa gala ee aad go'aansatid inaad adiga qofkaani maskaxdaada aad ka dooratay maal baada ku dooran maamul baadana u dooran waayo marka aad maskaxdaada ka dooratid waxaa imaanaysa xitaa marka aad go'aan qaadanaysid waxaa leedahay shalay meeshan anaa imid maantana anaa ka tegaya waayo go'aamada adaa qaadan kara maskaxdaada waxa ay taqaanaa sida go'aanka loo qaato iyo sida loo doorto laakiin haddii indhaha kaliya dooqaaga ay kuu soo jiidayaan oo indhuhu kaliya waxay arkayaan ay kuu qurxinayaan waxaa dhacaysaa markii aad guri islaameed gashid in waxyaabo tiro badan aad la kulantid ee maskaxdaada u qaadan weyso haddaad wax jeclaanaysid maskaxdaada wax ka jeclow si noloshaada dambe u noqoto midaad ku kifaaxdid oo aad waxyaabo wanaagsan aad kala kulantid waayo maskax caafimaad qabta baa awlaad caafimaad qabta dhasha ama awlaad tarbiyaysan oo markaasi tarbiyada qaadan karta haddii maanta haweeneyda maskaxda laga mashquulinayo oo ninka qaba maskaxda u ka mashquulinayo waxay waqti u weynaysaa awlaadda ay dhashay siday u kori lahayd ama u tarbiyay lahayd waayo maskaxdeeda waxay ku mashquulsan tahay qaabka loola dhaqmayo hadhowtina waxaa soo baxaya awlaad madax adag oo aan waxba fahmaynin jacaylka maskaxda kaa gala ama maanka kaa gala wuxuu ku wanaagsan yahay qofka aad dooranaysid waa qof aad ka fiirsatay ama aad fahmaysid oo xataa dhibaatooyinkaaga qaar kaa qaadi kara oo markii arrin culays ku soo wajahadana kula qaybsan kara maskaxda wax ka jeclow si nolosha ay kuugu hagaagto السلام عليكم